السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن ولا السلام يا أصحاب الأمانتين. waxaan rajeynayaa inaad wacan tihiin cashirkeenii soft skills ee aan ku bilaabanay organization behavior cashirkiisa labaad ayaan maanta soo qaadan doonaa hadduu ilaha ka raali noqdo. maalin horena marka waan ka hadalnay cashirkeen suu inoogu socon doono oo waxaan sheegnay inaan ilaa 5 6 units ay noogu socon doonaan. Introduction waan kasoo hadalnay lesson 1 ayaan naga soo hadalnay. What's organization wuxuu yahay, why is it important, muxuu muhiim u yahay, goalska macnaha oo laga rabo organization behavior, macnaha ujeedada aad ka leedahay organization behavior. Goalska macnaha to describe how people behave under variety of condition. Organization behavior waxay ka hadashaa sida dadka ay ugu shaqeeyaan under different of condition, xaalado kala duwan dadka ay ugu shaqeeyaan ayaa organization behavior ay ku suurtagelinaysaa, iyo dad kala duwan saa ula shaqeyn lahayd iyo marxalado kala duwan iyo pressure under pressure waxa la dhahaa. This allow managers to communicate about human behavior at work using common language. Waan ka soo hadalnay waxaan dhahnaa kale to understand why people behave as they do, sababta dadku ay ugu dhaqmayaan sida ay ugu dhaqmayaan. qofna dabeecadiisu u dhaqmaa, qof walba dabeecadiisa ayuu ku dhaqmaa. marka qof walba dabeecadiisa in lagu tixgeliyo saas lagu fahmo ayay organization behavior ka hadashaa. Okay, waxaana predict future employees behavior. waxay kaloo predict waxa la dhahaa waxay saadaalisaa future employees behavior, dabeecadaha shaqaalaha mustaqbalka. Okay, waxay kaloo control and develop some human activities at work. waxay kaloo controlshaa ama ay hormarisaa some human activities waxyaalaha dadka ay sameeyaan at work, shaqada ay ku sameeyaan. Since managers are held responsible, managerka isagoo maadaama uu ka yahay meesha mas-uul uu ka yahay way suurtagelaysa inuu ku controlo shaqaalahaas dabeecadaha iyo waxyaalaha ay sameynayaan inuu kala fahmo ayay u suurtagelinaysa organization behavior, oo ah qofka shaqadiisa daacad u qabsanayo iyo qofka xoogoo lugaha lug u laaban tahay. marka cashirkan yaro video ku saabsan oo qofkan macnaha qofka daacadda u ah teamwork marka laga hadlayo, qofka lugaha hayo company-ga iyo qofka steering waa company-ga ayaan videoga soo geliyay. haddana description-ka ayaan telegramka soo gelinayaa. fadlan telegramka soo gala qofkii oo soft skills-kaas wax ka ogaada rabo. cashirkeena maanta ayaan aadaynaa oo unit 1 ah oo ah organization in business. Organizationka businesska marka laga hadlayo, let us start with the basic in considering the following question. cashirka marka soft skills ugumaanan talagelin dadka beginnerska ah oo hadda luqadda baranayo. I cannot translate each words to Somali, so I will translate general topic or general idea ayaan Somali ku tafsirin insha Allah, si aad muhiimadda cashirka u fahanto. inta kalena oo luqadda Englishka taqaano oo shaqaalaha ah ama rabaan inay shaqo helaan ayana iyagu way fahmayaan insha Allah. buggaan marka cashir ka dhameeyo groupka telegramka ayaan soo gelin doonaa. marka what is an organization waan ka soo hadalnay. An organization maxaan dhahnay is a collection of individuals, waa shakhsiyaal isu tegay, arrange or decide oo isku raacay or agree isku raacay in a particular way, wax isku raacay, and implement or fix implanted oo dejistay in an ever changing environment in order to achieve a common goal. dad isku tegay oo isku raacay wax si ay u helaan ama uga salgaaraan yool ay lahaayeen ayaa la yidhahdaa organization. In this introductory unit you will learn about organization business, focusing on how the individual play a role in the success of the organization. You will learn that you must understand what influence, waa sidoo kale waxay aad ku baran doontaa mawduucan what influence or impact, waxyaalaha saameeyo shakhsiga dabeecadiisa, before you can study how individual interact. qofkan intaada marka horeba gelin inaad macnaha isdhex gelin qofka, waxaa habboon inaad dabeecadihiisa kor ka barato marka horeba with the organization ee ururka dhexdiisa.
qofka in la isbartaa waxaa ka horeysa inaad marka hore aad qofka baratid qofku iyo shakhsiyadiisa marka qofka adoo baran hadaad iskaga dhex dhacdid gadaal dambe ayaa waxa laga yaabaa inuu arrin kale ka imaado maadaama inkastoo soomaalida ay dhahdo dad iyo duurba waxaad filinaya kaaga soo baxo meel aad duur aad cidlo iska maraayo laga yaaba in wax aad fahmaynin fudud meel kaaga soo dhaco dadkana waa saas waxaa la yidhi wax aadan filinayn qof walba waad ka filan kartaa qofka kugu dhow iyo qofka kaa fogba marka laiskuma taxaluujiyo bini'aadanka laakiin inta tabartaada ayaa laga bartaa qofka okay understanding people dadkood fahantaa hata waa shaqada individual difference waxa la yirahdo shakhsiyadnimada kala duwan and perception iyo perception macnaha qof walba u fikiraa malaha qof walba perception gaar ayuu wataa sheeko ayaa hadda kahor waxaa la yidhi maroodi ayaa waxaa taabtay videogan halkaas ayaan soo gelin insha allah waa ku arki doontiin maroodi ayaa waxaa taabtay 5 nin oo malaynayaa inay indhala-aayeen mid sayntu ka taabtay mid dhagahu ka taabtay mid dhawarku ka taabtay mid lugaha mid walbana meeshu ka taabtay ayuu perception wuxuu u malaynaya ka sheegay wuxuu yidhi futada kii qabtay wuxuu yidhi saynta wuxuu qabtay meeshan waxay u eg tahay buu yidhi ul kii dhegta qabtay wuxuu yidhi meeshan waxay u eg tahay buu yidhi marawaxad kii oo dhabarka taabtay wuxuu yidhi meeshan waxay u eg tahay buu yidhi derbi marka wuxuu yidhi ani derbi baan taabtay ani lug baan kii waxaan taabtay geed nin walba perception gacantiisa waxay qabatay ayuu sheegay bini'aadan qofkan waa saas halkii qof ayaa nin walba si u arki karaa marka okay laakiin waxa isku hayo bini'aadan iskula jooga waa heshiis iyo waxaa waaye iyo xeer la dhigta waaye oo qof walba markuu kasoo gudbo xeerkaas uu qabanayo laakiin boqolkiiba boqol qof walba inuu wanaagsanaado macquul ma noqonayso individual bring number of difference shakhsinimada waxay keentaa waxyaalo kala duwanaan badan to work shaqada such as unique personality qof walba personality shakhsinimad gaar ayuu la imaanayaa oo kala duwan qof walba wuxuu la imaanayaa unique personality waxa la yiraahdo shakhsiyad gaar ah values waan u imaan doonaa iyadana values waxay noqdo values si loo macno waa qiimo ahaan waaye laakiin values hadda waa under the science marka under the science or psychology marka la yiraahdo values waxaa waaye waa just like a personalities waaye qofka values ku leeyahay macnaha openness qof furfuran miya qof social miya waaye laakiin values english ahaan ma aha waa under the science ayaan ku tafsirinaa emotion moods emotion waa just like dareen qofka uu la imaanayo moods qof oo macnaha moodkiisa qof oo xanaaqsan miya qof oo la galgalay kar miya qof mise qof oo wax yar dhaqso xanaaqa miya qof xirxiran miya individual difference waaye waxaas when new employees inta markuu shaqaale cusub soo galo organizationka they are staple or transit characteristics affect how they behave and perform dabeecadahooda ayay ku xiran tahay or affect garaysa how they behave sida ay u dhaqmaan and perform shaqadan u qabtaan moreover companies companyga si badana companyga waxay shaqaaleystaan people with the expectation that those individuals have certain skills dadka ay u malayaan inay leeyihiin skillskaas ay rabaan oo markaas ay ku base garaynayaan booska ay u rabaan customer care hadda loo rabo customer care waa inuu ahaado qof openness qof furfuran qof walba adi booska loo rabo iyo personality laga rabo ama behavior laga rabo ayay ku base garayaan marka hadday ku arkaan inaad leedahay skillskaas dabcan waa shaqadaas adiga ayaa ku qaadanaya skills abilities personalities and values therefore it's important waxaa waaye waa muhiim saa darteed to understand inaad fahanto individual characteristics dabeecadaha shakhsiyaadka that matter for employee mudan shaqaalnimada employees behavior at work dabeecadaha shaqaalaha shaqada waa ina it's matter muhiimad ayay leedahay the interaction is the perspective waxaa waaye the role of fit from the word interact perspective waxaa waaye individual difference matter in the workplace individual difference-ka waa muhiim ama waa matter arrin jirta waayo in a workplace meesha shaqada human being bini'aadanka bring in their personality waxay keenaan shakhsiyadooda physical iyo ayagoo socdo macnaha jir ahaantooda and mental ability iyo maskax ahaantooda
and their staple traits to work. waxaas dhan ay la imaadaan meesha ka shaqeynayaan. Imagine bal ka waran baa lagu dhahay that you are interviewing adoo lagu interview garaynayaan employee shaqo employee ninka ku shaqeynaya ku shaqaaleysiinaya who is a proactive, creative and willing to take risk and will this person to be a good job. qof baa macnaha qof baa dhibaatada inay dhacdo dhibaatada uu necab yahay. qofna dhibaatada inuu face gareeyo ayuu jecel yahay. waxaa la yihahdaa risk taker ayaa la yihahdaa. hadda waa arkaysaa Soomaaliya marka laga hadlayo hay'adaha NGO qofka u shaqeeya ka saaya maxaa lagu dhahay are you ready to work macnaha diyaar ma u tahay inaad ka shaqaysid meel oo colaad ka jirto, meel riski ah. dadka qaar way ka cararayaan, dadna qaarna waxaa way yeelayaan. waxaa la yihahdaa risk takers allah meelaha colaadaha ka jiraan ay ka shaqeeyaan. dad qof kasta kama shaqeyn karo meelaha Afghanistan, Yemen, Soomaaliya, Libya. shaqaale gaar ah oo skills gaar ah qaba ayaa ka shaqeeyaan. marka waa muhiim inaad macnaha skillskaas inaad leedahay. okay, waxaa lagu yidhi every organization is different. company kasta ama organization urur kasta is different. uu ka duwan yahay kan kale uu ka duwan yahay. and every job within the organization is also different. shaqo kasta oo organizationka dhexdiisa ana iyadoo sidoo kale way ka duwan tahay shaqada kale. according to the interactionist perspective maxay qabtaa behavior is a function. dabeecadda waxaa waaye waa macnaha is a function of the person. shaqada qofka ayaa dabeecadiisa ay leeyihiin and the situation interacting with each other iyo xaaladda oo qofka kale kula xiriiraya macnaha isku dhex galaya. think about bal ka fikir will a shy person qof xishoonayo speak up in class fasalka ma ka hadli karaa qof xishoonayo while a shy person may not feel like speaking. qofka xishoonayo ma hadli karo macnaha galaaska ma hadli karo if the individual is very interested in the subject knows the answer. xataa hadduu qofkaas u yaqaano su-aashaas oo macalinka weydiiyey fasalka qofka ku jira xishoonayo ma ka jawaabayo. laakiin qofka xishoonayo markii uu qofkan macalinka hadduu dhaho hebelow hadal ardada kale u hadlaysaa isku day su-aasha markuu hadlo su-aasha uu hadduu qaldo la dhaho maasha allah good trial waa isku day fiican. qofkaas hadda ka dambe shaqo uu la qabsanaya macnaha waxaa laga yaabaa inuu xishoodka wax inuu ka baxo. waa tahay asxaabay cashirkii wuu nagu dheeraaday. cashir kale ayaan kusoo qaadanaynaa individual difference values and personality hadduu ilaah ka raali noqdo. cashirkeena kale ayaan cashirkan kusoo qaadanaynaa. sidaas ayaan kaga tegaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu.